الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد ودرسيني سيرة أها نبي صلى الله عليه وسلم إنتان لصادرين وأن لو وحيونين عربي وحي كسغنايين شركي يقال نمو وحي عابدين أصنامت واني وينينيين وبدكودنا ويلينيين يقو كبقيا قاتشو يعيد نمو hablahana way nolol aasayeen iyagoo ka baqaya ceeb waxay ahaayeen kuwo kala tagsan kuwo dagaalama rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa la soo diray waqti jaahiliye ah oo dadku ay jahli isugu baxeen oo dulmigu dhulka wada gaadhay rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii ilaahay uu jibriil soo diray iqra ay ku soo degtay wakiilaha ma ana biqari inta kadib waxa soo degtay suuratul mudaththir nabiga sallallahu alayhi wasallam dacwadiisii ayuu bilaabay si sir ayuu bilaabay rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu u yeedhay ehelkiisii iyo cidii qaraabadiisa ahayd iyo cidii asxaabtiisa ahayd markaas wuxuu ugu yeedhay inay ilaahay keligii caabudaan cidii ugu horeysay ee dumar ah ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam rumaysaa waxay ahayd khadiija markii ay garatay calaamado fara badan oo ku tusinaya nabinimadiisa cidii ugu horeysay ragga rumaysaana waxay ahayd Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu inta rasuulka nabi laga dhigina saaxiib ayay ahaayeen beena kuma ogeyn waxa kale oo rumeeyay Zayd ibn Haritha oo nabiga sallallahu alayhi wasallam adoonkiisii ahaa cidii ugu horeysay caruur ee rumaysaa waxay ahayd Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Abu Bakr radiyallahu anhu isaguna wuxuu u yeedhay cidii uu jeclaa ee ay isjeclaayeen waxa ajiibay oo dacwadii aqbalay dad fara badan waxa kamid ah Uthman ibn Affan ثالث الخلفاء الراشدين waxa kamid ah Zubayr ibn al-Awwam rasuulku sallallahu alayhi wasallam markuu 3 sano dacwadiisii hoos u waday ayaa waxa ajiibay dacwadiisii dad fara badan oo isugu jira dad sharaf leh iyo dad adooma ahaaba inta kadib rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa la faray inuu dacwada la jahro oo si muuqato dadku wax ugu sheego Allah subhanahu wa ta'ala ayaa wuxuu ku soo dejiyay fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikiin yaani dilaaci oo sheeg cadee waxa lagu farayo mushrikiintana ka jeeso rasuulku sallallahu alayhi wasallam isagoo amarka fulinaya ayaa wuxuu baxay buurta Safa la yiraahdo qowmkiisii baan u yeedhay markii ay ku soo urureen ayaa wuxuu ku yidhi may rumaysanaysaan haddaan war idin sheego dhamaantood waxay yiraahdeen haa been hore kugumaanu baran rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi anqidhu anfusakum minan nar naftiina waxaad ka badbaadisaan cadaab anigu waxaan idin digayaa intaanu cadaab daran idin iman ka hor adeerkii Abu Lahab oo dadkii meesha isugu yimi kamid ah ayaa wuxuu yidhi tabbal laka ya Muhammad oo halaagsane ali hada jamactana ma waxaanaad isugu kaayso urursay buu yidhi Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu soo dejiyay suurada la yiraahdo tabbat yada abi lahab wa tab waxa halaagsamay Abu Lahab labadiisii gacmood isagoo dhan uu halaagsamay ma aghna anhu maaluhu wa ma kasab muxuu ka taraya oo ka daafacaya maalkiisu iyo waxa uu shaqaystay sayasla naaran dhaata lahab wuxuu gali doonaa naar holac u saaxiiba wa mar'atuhu gabadhiisuna way galaysaa حمالة الحطب حالي تهي mid u xambaaris badan xaabada inta kadib rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa ku soo degay hadalku Allah yiri wa andir asharatak alaqrabin qaraabadaada ku dhow u dig risaaladii ayuu yagana si gaar ah u gaarsiiyay waxaanu uga digay cadaab daran yawma la yanfa'u maalun wala banun dadkii cadaawada daran rasuulka sallallahu alayhi wasallam muujistay waxa kamid ahaa adeerkii Abu Lahab halka Abu Talib uu isagu rasuulka sallallahu alayhi wasallam daafacayay halka markay xaaladdu marayso jacaylkii Quraysh ay rasuulka sallallahu alayhi wasallam jeclaayeen wuxuu isu bedelay nacayb dhawaanshihii ay soo dhaweynayeen wuxuu isu bedelay fogeyn inta kadib rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ugu yeedhay Ilaahay keligii inay caabudaan waxyaabahan ay caabudayaan wuxuu sheegay inaanay waxba taraynin
dhibna daafacaynin. deetana quraysh way tageen oo waxay u tageen adeerkii iyagoo rasuulka ka dalbaya in uu joojiyo baadinimada uu ku xukumayo aabbayaashood iyo wax ka sheegidda uu asnaamtooda wax ka sheegayo. deetana Abu Taalib si wanaagsan ayuu ula hadlay, rasuulkuna dacwadiisii iyo diintiisii buu watay, kelmadda xaqa ah inuu kor u qaado isagoo doonaya. quraysh markay arkeen nebigu sallallahu calayhi wasallam sida uu ugu maman yahay fidinta uu dacwadda fidinayo, adeerkiina uu daafacayo, ayaa mar labaad bay ku noqdeen. waxay ku dhahdeen annagu uma sabrayno in aabbayaashaya la caayo, annagana maangaab lanagu tilmaamo, ilaahyadayadana la ceebeeyo. inaad naga qabato iyo inaad noo fasaxdo annaga iska qabanayne. deetana Abu Taalib wuxuu u yeedhay nebiga sallallahu calayhi wasallam, waxaanu ka dalbay in uu joojiyo hawshan uu wado, isagoo quraysh uga baqaya inay dhibaato gaadhsiiyaan. rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, ilaah baan ku dhaartay arrinkan kama tegayo ilaa diinta ilaahay ay kor noqonayso oo ta muuqato ay noqonayso, ama aniga la halaagayo oo aan dhimanayo. adeerkii wuxuu yidhi, soco oo waxaad tidhaahdaa waxa aad doonto, ilaah baan ku dhaartay weligay kuu dhiibi maaye, yacni weligay waan ku daafacayaaye. intaa kadib markay quraysh aragtay in rasuulku sallallahu calayhi wasallam dacwadiisa u wadayo oo aanu joojinaynin, adeerkii Abu Taalibna uu difaacayo oo uu garab taagan yahay, ayaa waxa ay bilaabeen inay rasuulka sallallahu calayhi wasallam dhibaan oo ay ku jeesjeesaan, gaar ahaan marka uu salaada tago. rasuulkuna sallallahu calayhi wasallam wuxuu ugu jawaabi jiray dulqaad iyo sabir iyo tudhaale iyo cafis. waxaa rasuulka sallallahu calayhi wasallam aad u dhibay oo dadkii dhibay ugu darnaa Abu Jahal iyo Abu Lahab iyo Cuqbatu ibn Abi Mucayd iyo Al-Waliid ibn Al-Mughiira. nimankaas Abu Jahal wuxuu arkay rasuulka oo ku tukanaya Kacbada, markaasuu salaadii u diiday. markaasaa rasuulku sallallahu calayhi wasallam uu jawaabtii ku adkeeyey. markaasaa wuxuu yidhi Abu Jahal, maanadii hanjabaysa, wallaahi waad og tahay in meesha aynu joogno ninka ugu tolka badan aan ahay. deetana ilaahay ayaa soo dejiyey aayado yacni jawaab u noqonaya Abu Jahal. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, kalla ha ka hadho gaalnimada iyo addoonka uu salaada u diidayo, lain lam yantahi, ilaah baan ku dhaartay haddii aanu ka joogsan, lanasfacan dhufannee binnaasiyati fooda, naasiyatin food dhufannee, fooddaasoo kaadibatin beenaaley ah. yacni isaga ayaa beenaale ah baa loo jeedaa. fooddaasoo khaati'atin gefsan oo khaldan, isaga khaldan baa loo jeedaa. falyadcu ha u yeedho naadiyahu ay ahla naadiih, golihiisa cidda u ehelka ah ee la joogta ha u yeedho. sanadcu annaguna waxaanu u yeedhi doonaa azzabaaniya, malaa'igta jahannama haysa. kalla laa tutichu, ha ateecin. wasjud, sujuud oo rabbigaa u sujuud. waqtarib, dhowow oo ilaahay u dhowow. waayo aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid, ruuxu markuu rabbigii ugu dhow yahay waa marka uu sujuudsan yahay. iyadoo rasuulka loo laabqaboojinayo ayaa allah wuxuu yidhi, innaa kafaynaaka almustahzi'iin, annaga ayaa kaaga filan kuwaa kugu jeesjeesaya. ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa ka aarsaday nimankaa rasuulka sala allahu calayhi wasallam ku dheeldheelayey. allah subxaanahu wa tacaala waa halaagay oo gaalnimadii ayay ku baxeen. qorayshi dhibitaankii ay rasuulka sala allahu calayhi wasallam dhibayeen waxay ku kordhiyeen oo ay ku siyaadiyeen inay saxaabadii dhibaan, gaar ahaan kuwa mustadcafiinta ah ee aan haysanin cid daafacda. qabiilo kastaaba waxay gacanta ku qabatay oo ay cadaabtay ciddiyada ka mid ahaydee islaamtay. waxaa ka mid a saxaabada ridwaanullaahi calayhim qaar la cadaabay oo la dhibaateeyey, sida Bilaal ibnu Rabaax oo kale. Bilaal waxaa lahaa Umayyatu ibnu Khalaf oo addoon uu ahaa. xadhig intuu ku xidho oo qoorta uu kaga xidho ayuu ciyaalka u dhiibi jiray. deetana markaasaa waxay xadhiggaa ku jiidi jireen bacadka kulul isagoo le axad. sidoo kale intay milicda kulul seexiyaan ayaa dhagax bay dusha ka saari jireen, waxaanay ku odhan jireen saasaad ku jiraysaa inaad dhimato
ama maxamed ka gaalowda mooyaane cadaabka iyo dhibaatada ayuu ku jiray ilaa markii dambe abubakar radiyallahu canhu uu iibsaday oo uu ka xoreeyey waxay kaloo aad u dhibaateeyeen camaar ibnu yaasir ilaa aabihii uu ciqaabkii la ciqaabayay u dhintay hooyadiina abujahal uu dilay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam marmarka qaarkood wuxuu soo mari jiray iyadoo la ciqaabayo markaasaa wuxuu odhan jiray isagoo u laabqaboojinaya sabran ahla yaasir fa inna mawcidakum aljanna haddaba markii ay arkeen qurayshi in dhibaatadu aanay waxba keenaynin oo dadkii muslimiinta ah ee rasuulka rumeeyey ay yaqiintoodii iyo iimaankoodii kusii kordhayo ayay rasuulka u tageen waxaanay ka dalbeen in sanadna ilaahyadooda uu la caabudo sanadna allaha kelida ah ay caabudaan deetana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu soo dejiyey suuratulkaafiriin isagoo leh qul yaa ayuha alkaafiruun waxaad ku tidhaahdaa gaaloy laa acbudu maa tacbuduun anuma caabudayo waxa aad caabudaysaan oo ah ilaahyo fara badan walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa caabudaya ma tihidin maa acbudu allaha xaqa ah ee aan caabudayo walaa ana anigu caabidun mid caabudi doona ma ihi maa cabadtu ay aladii cabadtumuuh kanaad caabudeen oo ah ilaahyo fara badan walaa antum idinkuna ma tihidin caabiduuna kuwa caabudi doona maa acbudu allaha xaqa ah ee aan caabudayo marka waxaa loo jeedaa kuwa gaalnimada ku baxaya ee aan islaamaynin lakum idinka waxaa idiin sugnaaday diinukum diintiinna shirkigiiyo gaalnimada ah weliya anigana waxaa ii sugnaaday diinteyda ayaa ii sugnaatay oo tawxiidka ah markii ay ka quusteen dalabka ayaa waxay yidhaahdeen haddaba qur'aanka naga beddel gaar ahaan qaybtan ilaahyadeeda dhaleecaynaysa ilaahay ayaa taa kaga filaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu yidhi qul maa yakuunu lii an ubaddilahu min tilqaa'i nafsi waxaad ku tidhaahdaa aniga iima sugna inaan beddelo qur'aanka xagga naftaydana aan ka beddelo in attabicu ilaa maa yuuxaa ilay ay maa attabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa ilay kaley waxyooday mooyaane wax kale ma raacayo wallaahu aclam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك